السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني مرور بسول هذا خيارتها كسول هذا شرنكيني صوت الحيس أين ما تكفل قين دونه سياسة كده حيسة إماراتك يا صومال. واي دولة الصومالية waxay go'aamisay wasiiradoodu golihii wasiiradu markay ay fadhiisteen waxay go'aamiyeen in waddanka imaaraadku uu ka baxo ama cilaaqaadkii uu kala laabtay ama heshiiskii uu kala laabtay heshiiskii ku wada jireen imaaraadka iyo Soomaaliya uu ka baxo. waaya haddaba dowladda falkaa ay geysay ama falkaa ay ku kacday ee ay kaga noqotay imaaraadku inuu Soomaaliya ka baxo maxay kaga falcelin imaaraadku muxuu kaga falceliyey muxuuse soo wadaa markii la faaleeyey ee la isbarbar dhigay falcelintiisu maxay noqon kartaa argoosigiisu muxuu noqon karaa taas ayaynu hadda faaladeena ku eegaynaa maanta. waaya haddaba imaaraadku marka aynu leenahay Soomaaliya ayaa ka noqotay heshiiskii ay la gashay ama joogitaankiisii ama cilaaqaadkiisii ka noqotay waxaynu uga jeednaa waxa weeye waa marka hore wax laysla ogolaa oo dib looga kala noqday. kala noqoshadaasu markaynu halkaas su'aal gelinno ma muqdisho keliya ayaa laga saaray ileen imaaraadku wuxuu joogaa dhul badan oo Soomaaliya ka mid ah ma wuxuu ka noqday muqdisho oo keliya uu ka baxayaa ma wuxuu ka baxayaa Kismaayo iyo Jubbooyinka ciidamada u jooga mataqaanaa gacansaar buu leeyahay dekedda Kismaayo miyuu ka baxayaa mase lagu amray mase ka bixi karaa Puntland boosaaso waa degan yahay dhul badan buu weliba degan yahay baysas buu ku leeyahay bays military ku leeyahay deked buu ku leeyahay maalgashi badan buu geliyey hanti badan baa ka baxday iyadana ma ka baxayaa waxa oo dhan marka aynu eegno horta marka horse muqdisho ka soo baxaya. waaya meesha la helo Kismaayo ee uu jooga ninka la hado Axmed Madoobe heshiis gooniyu la gala hub buu geeyey bays buu ka samaystay ciidamo u tababaraa hadda ma ujeedaa Puntland kadalik sida iyo si ka weyn buu iyadana ugu xiran yahay bays military jooga wuxuu argaxisan la dagaalamayaa wuxuu sameeyey dekedda boosaaso ayuu doonayay inuu dib u isku sameeyo waxa oo dhan ugu jira. haddaba meesha waxa weeye yuu la galay heshiiskan marka horeba heshiiseetan iyo waxa kan uu ka baxaayo ee uu galayo marka hore yuu la gelayaa waxa weeye inaynu horta yara fahanno ninkan yuu horta kontraag la gaa yuu la heshiiyey yaa u fasaxay waddanka sidee buu awooday inuu Soomaaliya marba qayb uu galo ama uu dego ama uu la heshiis la galo
intayna markaa taa aynu diiradda saarro waxay u muuqataa in Soomaaliya laftigeedu marka horeba heshiiskiisa imaaraadka aanu ahayn dhinac keliya ee uu qaldanaa. Wuxuu ku qaldanaa muqdishona goonni buu heshiis la galay oo madaxweynaha ayaa watay, xaggan kalena goonni buu heshiis la galay Madoobe, xaggan kalena Puntlandna heshiis gooniya buu la galay Deni. hadda ma ujeedaa markaynu siyaasadda guud horta eegno imaaraadku si guud buu dagaalamaya sida hadda ay filcelintu ay u muuqato ama hadallada ka soo baxaya ay u muuqdaan. horta midda u horeysa waxa weeye Soomaaliya iyo imaaraadku xaggay iska xidhan yihiin marka guud la eego. marka aynu ta guud eegno xagga dhaqaalahaan waa iska xidhan yihiin oo ganacsi baa ka dhexeeya. kombaaraysan haddaynu dhinac dhigno Sacuudiga iyo imaaraadka iyomaa Soomaalida u ka dhexeeya ganacsigu ama iyomaa xarakaad badan. xagga markaynu ka eegno labada aynu kombaarays ku samayno ama isbarbar dhig aynu ku samayno, Sacuudiga Soomaalida faa'iido badan kuma qabto, waxaana ugu qabin xagga ganacsiga cibaado mooyaane iyo dee adhi marmar loo dhoofiyo mooyaane. laakiin sida imaaraadka Soomaalidu ganacsigooda ugu xidhan yahay uguma xidhna Sacuudiga. tusaale ahaan baan ku siinayaa, waxaa la sheegaa imaaraadka xoolaha laga dhoofiyo hantida ka baxda ama ganacsiga ka baxa waddanka ugu badan ee wax ka rarta hadda eeg waa Iiraan baa la yidhaahdaa, lambarka labaadna waa Soomaaliya. markaa hadda markuu saa uu cilaaqaadkii noqday, imaaraadku wuxuu samaynayaa falcelin siyaasadeed oo hadda weliba sida ay faallaynayaan dadka faallooyinka qoraa. lambar 1 horta Soomaalida uu ka soo saaraya waddankiisa, safaaradda Soomaaliya wuu xidhayaa. safaaradda Soomaalida markuu xidho waxa laale bacdaheedu waxay ka dhigan tahay wixii taa haystay baasaboor Soomaali inuu waddan ka saaro, inuu ganacsigii yareeyo. halkaa maxaa ka imanaya marka Soomaaliya khasaare badan baa uga imanaya, waayo dad badan baa baasaboor Soomaali ku shaqaysanayey, dad badan baa caafimaad ahaan ugu tegayey, dad badan baa wax ka soo dhoofsanayey, dad baa ganacsata ku lahaa, dad baa xoolo geynayey. feedbackgaas ka soo noqonayaa mid negative noqonaya oo waxay gaadhaysaa arrintu shacabka Soomaalida. hadda ma ujeedaa marka xaggan la eego siyaasad ahaan Soomaaliya macnaha siyaasad ahaan faa'iido kumay qabin imaaraadka siday shahiigu sheegayaan, khasaare ku qabin. laakiin muxuu noqonayaa oppositekeedii dhinacii kale muxuu noqonayaa? wuxuu noqonayaa in shacabkii ay ka soo gaadho hantaaqo ganacsi. laba arrimoodba isagoo ku argoosanaya. horta waa mide Jubbaland Axmed Madoobe saari maayo imaaraadka, ma faa'iido ku qabaa. halkaa dowladdu waxaad moodaysaa inay halkaa dowladdu ka kala dhantaalan tahay. Denina ma ogolo, Puntlandna ma ogolo imaaraadka inay saarto. dowladdiina awood uma laha ay ku kontaroosho oo kaga saarto. hadda ma ujeedaan? laakiin imaaraadku awood wuu leeyahay Soomaalida joogta imaaraadka iyo kuwa ku ganacsanaya iyo kuwa ka shaqaysta iyo ganacsigooda inuu muuf yidhaahdo oo ka saaro. taa isagu awoodi karaya. laakiin Soomaaliya tan kale ma awoodi karto iyadu. Puntlandna kama saari karto, Jubbalandna kama saari karto. marka su-aasha meesha taagan ee la isweydiinaya waxa weeye Soomaaliya maxay ka faa'iiday ama Muqdisho maxay ka faa'iiday
saarista imaaraadka hadda meel kastaba eg adduunka waxay qiimeynayaan marka hadday dowladda sahay ka baxdo waa arrin soo dhammaaday arrinkaas waa arrin meel kasta laga eegay meel kasta mataqaanaa wixii feedbacka laga eegay wax laablakaci adduunka ma jiraan adduunka wax laablakaci ma jiraan waxweeye waxa marka aad samaynaysa waa in la ogaado ama la hayo maxaa ka rakibmaya konsunkisiga muxuu yahay maxay tahay dhibta ka iman doontaa maxaa ka rakibmi doona hadda ma ujeedaa saaka tiifiyada aljaziira waan ka arkayey carabiya waan ka arkayey dadka aqoonta u saaxiib kale ee siyaasadda aad u analysiska ku ah ee dhex galaana waxay sheegayaan feedbackeeda khasaaraha wuu jiraa faa'iido ay helayaan soomaaliya imaaraadka saaristiisa laakiin khasaaraha soomaaliya ka soo gaarhaya ayaa ka badan faa'iidada ay soomaaliya helayso saarista ay ka saarto faalladaasaan maanta ku eegaynay faalladeenna mudane iyo marwooyinba intaasay maanta faalladii ay ku eg tahay fadlan sabskribtiga iyo leegta iyo sheerka inoo saara jananka idinkoo mahadsan soona dhowaada meel fog gaarsiiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu